السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما ولا لهي ملك استوديو ذا كتشوفتان وان إذن سلام يا سلام كدب كليب كان أديك أيوكو قصية وانا كفايدة إن شاء الله بإذن الله حافظة ولا لها نقارسي ملدير قارسي بارك الله فيك يعني كاهوس بحين ودوا قالية وأد أباهان تهي هدي أنا أباهنين أصحاب تاذا فاملي غاقي يقرابة دادو أي أباهينهين dawadan waxa ay qusaysaa qofkii ka cabanaya makaanka in uu ka soo baxay buro amba fin amba fiix kilibkan wuxuu qusayaa haweenka ka cabanaya gudaha oo ka soo baxa saddexda shay ee aynu sheegnay sida fiixda finka amba burada kilibkan insha Allah ta'ala waxa aan ilaahay ka rajeenayaa in aad gaarsiiso meel dheer waa daawo yar oo fudud oo simple ah ayaamo yaryar oo fudud oo simple ah iyo farxad si fudud aad u helayso warwar iyo walbahaar ka tagaya ayaamo yaryar gudahood yaani hadaba ka hoos bixin dawadu waa saddexdaas shay oo la karinayo laguna karinayo bikeeri biyo ah waayahay insha Allah ta'ala wayn bilaabayna daawada yaani ka hoos bixina si fiican u dhageyso uu ku anfacaya barakallahu fiik waxaad soo qaadanaysaa gobol zanjabiil ah zanjabiisha freshka ah gobol intan leeg ayaad soo qaadanaysaa waad jarjaraysaa waxaad ku kor jarjaraysaa 3 xabo oo toon ah toon 3 xabo oo yaryar oo toona baad ku kor jarjaraysaa waxaad ku daraysaa insha Allah ta'ala bahalka loo yaqaano dhagayaraha 8 xabo 8 xabo oo dhagayara abaad ku kortaraysaa kadibna waxaad ku shubaysaa bikeeri biyo ah waad karkarinaysaa si fiican markay biyaha sukaraan ay isrogaan ayaad ka dajinaysaa waad shaandheersanaysaa amba waad miiranaysaa kadib markay qaboobaan bisinka ayaad qabsanaysaa biyahaas ayaad cabaysaa maalinkii intee ayaad ka isticmaali karaysaa 3 waqti 3 waqti ee maalinkii in aad samaysato ayaa la rabaa subaxii iyo qadada iyo cashada 3 jeer ba inaad samaysato quraac qada iyo casho hadaba cuntada miyaad ka horeysiinaysaa ha cuntada ka hor ayaad cabaysaa muddo intee leeg ayaad kaga nasanaysaa burada ka soo baxda gudaha amba fiixda amba finka ka soo baxa gudaha muddo intee leeg ayaad insha Allah ta'ala kaga nasanaysaa jidhkan bilaa-aadmiga dawada waa kala qaadasho og yahay bilaa-aadmigu dawada way kala qaadasho og yihiin muddada ugu badan ee aad isticmaalayso waa 1 bil amba 4 week muddada ugu yar ee uu kaaga tagayna waa 1 week waa hadba jidhkaaga ay ku xidhan tahay sidii uu daawada u qaato dadka qaar wuxuu kaga tagaa 1 week dadka qaarna way bataano uu ku bataa oo 1 bil ayuu kaga tagaa marka weega u horeeya marka aad isticmaasho haddii aad wax iska garan weydo 3 cisho oo nasasho abaad qaadanaysaa kadib dib ayaad u bilaabaysaa weeg kale oo cusub ayaad haddana dib u bilaabaysaa weegaas labaad haddii aad wax ka garan weydo 3 kale oo nasasho abaad qaadanaysaa weeg kale oo saddexaad ayaad dib u bilaabaysaa waxaan ilaahay ka rajeynayaa qofka jidhkiisu dawada hore u qaadan waayo in uu 3 weeg gudihiisaba kaga tago qofka kalena 1 weeg gudihiisa ayuu kaga tagayaa marka barakallahu fi kilibkan waa ku anfacaya adiga ayuu ku quseeyaa familygaaga ayuu anfacaya asxaabtaada ayuu anfacaya kaligaa ha isku koobin familygaaga ha ku koobin dhammaan asxaabtaada oo dhan u dir si ay uga faa'iideystaan barakallahu fiik waa fiixda finka iyo burada ka soo baxa gudaha haweenka ka soo baxa waxaad ka nasan doontaa camaliyad amba qalitaan amba operation lagu sameeyay oo haddana lagu yiri dib bay u soo bilaabmatay waxaad ka nasan doontaa operation lagu sameeyay oo lagu yiri haddana tii mid ka weyn ayaa meeshii ka soo baxday waxaad ka nasan doontaa operation lagu sameeyay oo lagu yiri finan yaryar ayay ka tageen fiixdii amba buradii amba finkii laga jaray finan yaryar bay ka tageen dhammaan waxyaabahaas oo dhan waad ka nasan doontaa dhakhtar aad meel dheer u tagtana waad ka nasan doontaa kharash badan oo ka baxana waad ka nasan doontaa kaliya waxaan ka codsanayaa
in aad u ducayso labadayda waalid oo geeriyooday in ilaahay subxaanahu watacaala uga dhigo sadaqa jaari sidii aan horeba soo sheegay waxaan kaloo kaa codsanayaa inaad aniga ii ducayso iyo xaafadayda insha allahu tacaala adigana waa kuu soo ducaynaya kuma iloobayo ilaahay subxaanahu watacaala waxaan kaaga rajeynayaa si deg dega in uu rabbi subxaanahu watacaala dawo iyo shifo iyo caafimaad alla kugu siiyo waxaan ilaahay ka rajeynayaa dad badan aad u badan baa ilaahay subxaanahu watacaala shimbir iiga dhige adigana inuu ilaahay subxaanahu watacaala shimbir shifo iyo daawo alla iga kaa siiyo baaraka allah fiik asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu